waxaan aragnay markii ay maxkamadda sare laashay doorashooyinkii isku sidkanaa ee ka dhacay galmudug inay dowladda federaalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka inay guddigoodba aqbaleen go'aankii maxkamadda sare. shalay waxaan aragnay liibaan axmed xasan ninkii ku guuleystay xisbiga GSB doorashooyinka galmudug inuu asna aqbalay wixii go'aan ee ka soo baxay maxkamadda sare. marka taas maxay ku tusaysaa taas waxay ku tusaysaa wax la yiraahdo admission of guilty. markii ay go'aankii si fudud ku aqbaleen waxay caddeeyeen in meesha dambi ka dhacay, in qalad ka dhacay, in doorashooyinka la isdaba mariyay. marka su'aasheeda maanta waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganayo jaaniska halka ay ku lumiyeen weynankiisa hadday ogaan lahaayeen maanta ma aamusnaadeen. iyagoo uguma dareenayo oo runtii waxa waaye, laakiin waxay ku tusaysaa inuusan dalkaas Soomaaliya mucaarad jirin. mar haddii maxkamaddii sare ee laashay doorashooyinkii isku sidkana ay ka dhacay galmudug, guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaana u aqbalay in dembi halkaa uu ka dhacay iyaga ay geysteen ay si fudud ku aqbaleen, iska daa xisbiga GSB, iska daa dowladdaba. laakiin mar hadduu guddiga dembiga isku caddeeya u ogolaaday isagoona wax objection ama wax xataa fikir dood ah oo sida ay wax u dhaceen dee gebigood ma wada qaldana iyo qayb baa qaldanta iyo wax haddii ku doodi lahayn waxbay ahaan lahayd waa loo garaabi lahaa. laakiinse mar haddii ay ogolaadeen wixii dhacay inayba qalad ahayn gebigood, waxa ay lumiyeen fursadda ay lumiyeen mucaaradkan kuu sheegaa. marka fursadda ay lumiyeen waxay tahay inay yidhaahdaan guddigan guddi la aamini kara ma aha, guddigan guddi trustable oo reliable ma aha. wixii ka dhacay galmudug ee maxkamaddii soo saartayba hadduu ogolaaday dembigaas uu qirtay, taas waxay caddaynaysaa inuusan guddigaasuto trustable ahayn. marka halkii ay mucaaradka maanta jira ee runtii waxa waaye dhul iyo xaafado la barakiciye iyo wax iska local aho magaalada muqdisho ku eg ay ka doodaan maalin walba intay shir jira jasiiro la soo fariistaan, opportunity-ga maanta siyaasadda ay wax ku bedeli karaan ay gacanta u soo gashay oo aysan ka faa'iideysanin ayaa laftirkeeda dhibaato ah. taas waxay ku tusaysaa in Soomaaliya aysan dimuqraadiye iyo doorasho iyo qaabkeedii sida saxda inaysaba aqoon. 1967 ayaaba noogu dambeysay. waa run cid practice garaysa ma lahan, laakiinse opportunity-ga maanta ay heleen mucaaradka oo runtii waxa waaye doorashooyinkaas lagu laalay, guddiga doorashada waxay ahaan automatically inuu iscasilo. guddiga lama aamini karo, hawshii iyo wixii uu isdaba mariyay awgeed waxay ahayd qodob ay ku doodaan. laakiin tan maanta waxa waaye waa ay ka faa'iideysan waayeen. guddiga doorashada maanta wuxuu yiri mar labaad ayaan doorashadii qabanaynaa. liibaan axmed xasan oo xisbiga GSB hogaaminaya ee doorashada runtii laga laalay, asagana uu guushii uu helay ilaa waxba kama jiraan, asagana waa u ogolaaday. asaga de waa nin waxa waaye runtii waxa waaye xisbigiisii iyo danihiisii waxa waa qasaaro lacageed uu galay. laakiinse nimanka lumiye fursadda iyo shaqada lumiye waa nimankan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. marka sidee lagu sii aamini karaa ayay ahayd dooda maanta taagan. laakiinse waxa waaye halka ay ku doodayaan guri baa la barakiciyey, guri baa la dumiyey, dad baa la barakiciyey, iyadoo another issue, laakiinse national issue ma aha. wax loo kalo qayb ka mid ah waxa waa problemka Soomaaliya u baahan in la xalliyo. dad badan waxay ku doodayaan madaxweynaha iyo dowladda federaalka caasimadda ayay quruxsanayaan oo dambiba uma arkaan. caasimaddii in obasiibooyinka laga baabi'iyo ee sare dhaadheer oo qurux badan laga dhisaa, daara dhaadheer oo qurux badan laga dhisaa, dee sida caalamka adduunka ay la tartamaysa ayaa la leeyahay garbaaba lagu siinayaa. dadkiina waxa waaye waa qanacsiyihiin oo waa kaasaa guryahoodii dariiqyo iyo wadooyina loogu bixiyo maanta meydkoodii waa ay qaadanayaan. marka dood runtii waxa waaye ay guul ku heli kareen ma aysan ahayn mucaaradka arrimaha guryaha iyo runtii maalin walba ay hotel jasiiro la soo taagan yihiin.